inaan halkan hortiina ka soo jeedino erayo taariikhi ah waqti taariikhi ah oo runtii aad dareemi kartiin arrimihii lagu kala qaybsanaa gobollada dowlad goboleedyada kuwa jooga iyo kuwa aan imaan madaxda federaalka dhinacba ay si la ahayd tanaasul badan kadib dhafar badan kadib la isla gaaray wax u cuntama ummadda Soomaaliyeed arrintaas ayaa runtii dhammaanteen sharaf noo ah waxaa si gaar ah aan raba halkaan inaan uga soo jeediyo mahad celin ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha gogosha dhigay iyo bulshada reer Galmudug dadaalkii iyo dulqaadkii dheeraadka ahaa oo ay u muujiyeen shirkan muddadii uu socday walaalayaal waxaad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyaddu muddadii uu xilka hayay inuu bulshada mar walba u sheegi jiray dastuurna ahayd runtii in la gaari doono 2021 doorasho qof iyo cod ah balse aragtiyada dowlad goboleedyada iyo qaybo badan oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ah marka ay la yimaadeen aragtiyo kala duwan uga soo tanaasulay aragtidii iyo ballanqaadyadii bulshada uu la wadaagay iswada xambaarashada hadda dhacday taas ayaan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka runtii sida aad aragteen go'aanka la gaaray oo lagu gaaray heshiiska ma aha wax dhinacna u xaglinaya waa tanaasul dhammaystiran oo ka yimid dhinac walba hadday ay ahaan lahaayeen dowlad goboleedyada iyo hadday ahaan lahayd dowladda federaalka runtii lagama tegin madaxda dowlad goboleedyada ee aan shirka ka soo qaybgelin tabashadoodii ayagana waa laga jawaabay waxaan rajaynayaa marka aragtida walaalahood ay isla qaateen inay taageeri doonaan qaybna ka noqon doonaan biidni illaahi kariim mar haddii heshiiska lagu dhisay taxadir udan ah xeerinaya qofka jooga iyo qofka maqan rabitaankiisa walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa halkaan inaan ammaan ballaaran uga soo jeediyo shacabka reer Galmudug iyo hoggaankooda kuwaas oo suuro geliyey 3 shir oo heer qaran ah inay martigeliyaan ayna uga soo gabagabowday shirkii Dhuusamareeb 3 oo ah midka aan hadda u fadhino si aad iyo aad u qurux badan walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan idin soo gaarsiiyo hambalyo iyo salaan aan idinkaga wado bulshada caasimadda ayagoo runtii farxaddan idinla wadaagaya ayay idinkaga hambalyeynayaan isxambaarashada aad isxambaarateen iyo is-iimaansiga reer Galmudug ahaan aad is-iimaansateen walaalayaal
in la isqabqabsado ama la iskhilaafo waxaa ka qurux badan sida aad haddaba arkaysaan in la is-iimaansado. is-iimaansiga ayaa wax badan ay noogu dhismi karaan, haddana ay noogu dhismeen oo suuro geliyey saddexdaas shir oo aan hadda soo sheegay. in la is-iimaansado, tanaasulaad la isu sameeyo, gacmaha la isqabsado waa midda noo suuro gelin karta dib u dhis ballaaran iyo nololna wada gaarta, isla markaas xurayn karta degmooyinka ka maqan galmudug ee cadawga uu haysto. runtii degmooyin badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya kuma jiro gacanta dadka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed waxa haysta cadow. haddii aan loo midoobinna waxay fursad siinaysaa inay sii joogaan. walaalayaal, waxaan rabaa dhammaanteen inaan danta guud u tanaasulno si fursad aynaan u siin cadowga ka taliya meelo ka mida degmooyinka dalka. walaalayaal, sida aad la socotiin, madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu labada gole ee baarlamaanka federaalka ka codsaday inay ansixiyaan matalaadda gobolka Banaadir, taasoo runtii si aad iyo aad u qiimo badan oo uga jawaabay golaha shacabka. golaha aqalka sarena aan rajaynayno marka ay gaarto inuu sidaasoo kale u soo dhoweyn doono codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda. waxaan rabaa anigoo ku hadlaya magaca bulshada ku nool gobolka Banaadir iyo caasimadda Soomaaliya iyo magaciinaba inaan hortiina ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo golaha shacabka Soomaaliya oo labaduba si is-aqbalaad ah ku ansixiyey matalaaddii gobolka Banaadir. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, arrintaasi waa arrin wax badan ka beddeshay qalbiyada guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir iyo magaalada caasimadda ah. waxaad ogtihiin magaalada caasimadda ah waa hooyada magaalooyinka Soomaaliya, waa hooyo aan caasin marnaba ubadkeeda balse nuujisa. runtii waxaan rajaynayaa inay hore u nuujisay, haddana nuujiso, siina nuujin doonto. marnaba ma rajaynayo inay caasiso ummadda Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waxay ka dalbaysaa caasimadoodu inay siiyaan maqaamkaas oo ah mid dastuuri ah, oo dastuurka uu tilmaamayo, balse uu gacmihiina iyo codkiina ugu dhiman yahay dhaqangelintiisu. walaalayaal, arrintaas suuragelinteedu waa mid keeni karta guud ahaan Soomaalidu inay is-iimaansato, qof walbana isagoo yaqaana xuquuqdiisii oo hore u socdo. waxaan rajaynayaa xilligaan hadda lagu jiro in barnaamijkaas uu ka soo dhammaan doono madaxda reer federaal iyo madaxda golayaasha dowladda Soomaaliya. waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo reer galmudug, idinkuna dardaarmo dadaalkiinaan muuqda, dadnimadiinaan muuqata, inaad sii labalaabtaan, walaalihiinna kalena aad garab istaagtaan adinkoo xayi ah oo nool oo gacmaha is haysta, xuraysaanna degmooyinka idinka maqan oo cadowgu haysto. annaguna heel iyo hoo ayaan idinla garab istaagaynaa biidni illaahi alkariim.